Number 1. Number 2. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي لي هاي صحابي سو دواده سبتي وعنا وناكسن فيديو حندوبي وصبتي لكن مشكلة جرته خد كان راحن خد كي قرب حماضي مركا waxaan sugaynaa Allahu a'lam intii laga hagaajinayo fiidiyaal badan oo sameeyaan marka insha Allah waqtigaasna soo galgalina sidii la yaxaabi soo dhawaada gacmo furan qalbi saafiya walaashan raxiimada la welcome soo wanaagsan maanta waa dhiirigelintii socodkii laakiin waxa socday wajdan xaaladda adduunka jirta qabowga adduunka socda qabowga adduunka ya waxaan u socdaa magaalo xagga ku taal aan dhaweyn marka insha Allah waxaan sameynayaa maadaama qabow xun socdo hadda 1 kiiloomitir aan soo socday 2 kiiloomitir markaan ordaba hal mar wax yar soo duubay insha Allah xabaabi fiidiyaas saacada gacmaha qabow iga fariisan insha Allah dhiirigelintii waaye hala lugeeyo qofkii xataa magaalada degan magaalada dhexdeeda hala lugeeyo ya marka insha Allah maanta wuxuu ahaanayaa barnaamijkeenu socod oo isboortina guriyaha laga baxo wadnaha laga shaqaysiyo murqaha laga shaqaysiyo iyo wixii kale gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed bawaana isdhahayno waanada in laga daalo ma aha adduunka sidii hore ma aha da'yartu way sii halaabaysaa marka insha Allah kulay kuwi wax ku qaatan Allah ka dhigo marka axbaabi waan ordaya hadda meelaha garaad jiro baraf fariisto dholo noqday hadda qofku markuu hadlayo oo qabow badan kaga dhaca carabka oo dhaxa hadhow soor camal u fidfida marka insha Allah hadda waad u jeedaan meeshan oo kale galaada yaalo soo burburqayso ma aragtaan marka way kula siiban karaan laakiin waxa xiranahay kabihii oo loogu talagalay tuurka iyo buuraha marka insha Allah hadda waan ordaa marka meel xataa magaalada aan u socdo meel yar waxa jirto banaanka ah awal guriga lagu dhixibin jiray laakiin hadda corona dartiis banaanka waxay uga sameeyeen meel yar waxay ku gadaan malabka ukunta saabuunta waxyaabaha saasa insha Allah codkayga aan maqlaysana rajayna xabaabi waxa ma iska fogeeyay sabiicadan ku hadlaayay hadda leemalka marka insha Allah xabaabi waan ordaa bacda 2 kiiloomitir kasta insha Allah wixii aan dhahayaan soo duubay inkastoo qabow xun jiro xaggan ka imaaday magaaladeedii يا الله معي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر ذنوبي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إله ربي ورحمن وأنا يكوى قلبك حنوصا نكر إلالي يقول في الدين هذا يا رب يا الله مركب أرضى قبل صحة حدين ولا لي دوركم حد كلي أو سعطة يقال حي جزاكم الله خير أخواتي إن ما على الأقل إلمها ودتي وما علشان قف ودتي المركب ماشي قربنا عسالة لها ilmihii hore ma aha haddana waqtiyadan oo kale marka lockdownka lagu jiro ilmihii iskuul lahayn habeenkii way iska soo jeedayaan subaxii way hurdaan aniga hadda waa 8 iyo barkay ii tahay ama 2 saac iyo bar qof walba sida u fahmayo marka waan u danaysta aan hadan leesama ya hadda u danaysan weyso aday ku taala marka waxa weeyaan insha Allah xabaabi waan ordaa u jeedaan dhulka adduunka sidoo yahay cirka dhulka isku ekaaday ilaahay caadil kan leenahay nagu xafid diinteena saxaafada qaaliga 4 kiiloomitir aan soo jaray waan soo ordaay dhulka garaadkana meelaha garaadkana ka leexanay hadda waxaan soo gaaray magaalo yar kale tuulo kale marka tan waa socday waan soo dhaafayaa insha Allah ya hal dadaalku waa muhiim dadka arkaysan barafkaas ay galaan isku aasaan sababta isku aasayaan maxaa weeyda wadanka iyaga iskale way ka ogyihiin ya waxa isku aasayaan caafimaad ay ka raadinayaan murqaha ya in ay maxay la qabsadaan qabowga kulli Allah wacala dhakhtar may saasan muuqaal kan saasan kulli u maleeyay in raanay murqahoodu
ay gubtaan anuu barafka lagu qofku markaad hadda banaanka wax taagto hilaaca baa kaa baxaya marka leen saasaan u fahmay inay murqahooda un rabaan inay ka shaqaysiiyaan iyo wadnaha iyo waxaas marka waxaa rabaa meel lagu ilaaya haddaad tagto isha kale la iska ridaa marka insha allah walaal dalkeeni ka imaanay dunida aan imaanay si u dhaqmayaan waa inuu la dhaqano waxaa calaashaan diinta ka baxsan shaqo kuma lihin laakiin wixii wanaagsan ay samaynayaan ama si qaabka waddanka loogu noolaado waa inaan kaga dayano insha allah marka hadda sorry waan igu nasanayay hadda waan ordaa wadhowa meesha kalean u socda rooyaan kasoo laabtay insha allah marka wayno iyo marka kalen haddana halka kasoo jireeya insha allah masaxaadtayda qaaliga magaaladii aan soo socday taargetkayga ahayd inaan kasoo laabto waa tan tii haddeeran soo agmariyay tan 2 kilomitir ayay isku jiraan magaaladaydina dee subxaan allah ilaahay baa ka sheekayn karo sidoo qofku markuu ordayo 5 kilomitir waa dhinacan maybe dhinacaas kalaan ka laabanayaa inay dhinacaas ka yartaa laga yaabaa marka hadda magaaladii yarday waa tan tuuladii yareyd marka insha allah waxaan isku dayayaa inaan meesha malabka markaan gadanaya inaan ila soo wadaago insha allah gaaladana waa iska dhibadayn haddana igu qaylin yaa ayna idhin maxaa waaye kamardan naga duunis ma lacagta meesha banaanka lagu guray xadda rabtaa ay ku dhahay karaan hadday rabaan marka insha allah waa kan boorkeedu waa ka halka hore ku yaala ilaa halkaas calaashan haddaan sii wado fiidya waxaan ka cabsanayaa inuu bato marka insha allah haddaan wax macno laga hadlayn fiidya iska badan ma fiicno marka insha allah ilaa meesha malabkaan ka tegayo aan arkaya malabku wuxuu ku dhex yaala ilaa xagga hore magaalada dhexdeeda hore sii socona insha allah yaa walaalay macmal laan baa kaa badatay maxaa waaye waad ka soconaysaa qabowga wallaahi qabowga jiro laa ilaaha illa allah maxdas dabaysha dhacaysa qabowga jiro adigana waad kogaysaa baan ku dhahay laakiin waa inaad wax walba la qabsatid yaa sababtoo ani waxaan kusoo noolaan jiray hadda jeer maan ku noola waxaan kusoo noolaan jiray Norway meesha ugu dambaysa allase meesha ugu dambaysa waan dhihi karaa oo Tromsø naga sii shisheysay meelo badan oo kale laakiin Norge meel dhaxan ku noolaan jiray oo barafka qofkii garanaya saxaabteed wali qaar degan isla xidhna barafku waxaan ku leeyahay jilbaha ku dhaafay oo maxay haydana dabaysha dhacaysa ay kugu ridayso badna adoon arkayn mararka qaar subxaanallah marka axbaabi hadal aan ugu badinin jirka inaan laga dhaqdhaqaajiyo weeyaan maxay haydana naftada ka shaqaysiiso ama hooyaha ama aabaha dalkaaga waad ka imaatay duruuf kasta ha ka keento wayna dadaasho jirkaagu marka u horeysa waad inaan jirkaaga practicum ku samayso intuunan gaal practicum ku darin marka hore aad jirkaaga practicum u dar kabacdina aad qof adag wax qabsan kartaa insha Allah waan soo gaaray magaalada boorkeedu waa kan waan galaa marka xagaan sii marayaan arkaa insha Allah waa ka soo jeedaan magaalada tuuladan soo marayay Frankfurt la dhahaa waa taas waa 2 kilomitir marka magaaladan galaya yaa xaafadii waa ku jira marro inaan wax duubay arkaan marka qatiibtaan u socon saxaabtayda qaaliga ah waan soo laabtay magaaladiiba koonaha kalaan uga baxay ilaa meesha malabkii laga qaaday ana waan fahmo waxaas dhahay malaha ma dhawida socon ana guriga u dambeysay maray sarki waan soo laabtay albaabkan istaag halo wax ila hadlaan waay waxaan soo naagtan madoob waxba inaga xadisay malaha ku dhahayaan ka carar meesha marka waan soo laabtay waxay tiri habarti islaam baa waxa leeydi gabadheeda la guursaday hal gabadh ay lahayd gabadheeda laga guursaday gabadheeda wax badan bay la talin jirtay waxa dhigto hooyo ka fiirso guurkaaga nin fiican guurso gabadh soo noqnoqoto la soo furfuray ma fiicno ku ekow ninkaaga hooyo gabadh ninkeeda ku dhagan ahaw dibadna maalinta dambe qadar ilaahay wuxuu qadaray miyaa laga faya maalinta dambe gabadhii ninkii guursaday ilaahay intuu calafkeeda u keenay haddana isku dhaceen uu soo furay markaasay baraanbur bay tirso waxay tiri تعب قصاري قد عيه قبل ما طلع لأن قبل ما ذي على السيتش سما مركز حالته هذا قيبتي مالك وكمان سو قوليسن ماشي أنا مركي لبعض كيلومتر اللي تاجنا كبع هل كيلومتر يا بركة لانسي صعد وحن أسرعني هل كيلومتر يا بركة صباحية هاي مالك كمان سو كسو في قوليسن لكن إلهي بنقرن وحول بالحمد لله هذا قول بيجي أصير لابنا يا 4 كيلومتر وايه ilaa gurigayga halkan
aan soo dhaafay boodhka ka boodh 3 kilomitir ilaa gurigaygu 1 kilomitir 4 kilomitir saas waa insha Allah hadda waan sii laabanaya yaa baabura gadaashii soo lolooyo reehay qalin daari abaha ku xun markaas xaata qaaliga ah maanta dhiirgelin socod orod yaa iyo waxay ahayd inaan xoogay gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed aan halkan wax yar fariin u mariyo iyo hooyooyinka badde hooyooyinkii aabayaasha ha socdaan ha dadaalaan cunto heltilo caafimaad qabta hal la cuno dad iga mutacallinsan oo calaashaan anigu eber baba iska hay wax bartay oo caafimaadkooda ka shaqeey waa buuxaan laakiin waxaan ka hadlayaa dadka guryaha fadhiya yaa oo bustaha hoosta uga jiro dhahayo wow ma waxaasa loo bixi karaa ilaahay baan ku dharin waxaasa loo bixi karaa qabowga dhacayna malay maya waad u bixi kartaa jirkaaga bar qabowga murqahaaga bar qabowga si aad qof wax qabsanayo noqon karto sababtoo ah Afrika maal haddaan tahay weli qof guriga fadhiya ama weli aad tahay qof kaam ku jiro bari waxa lagu dirayaa baraf kastoo dhacaya iyo duufaan kastoo dhacaysa shaqaad aadaysa dabada laga galaya wax cayl fadhi lagu cunayo ma jiro marka naftaada bar yaa dalkaaga waad ka imaatay dadaal waa sheekadu gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay gabdhahan ku horeynayaa waxaan leeyahay gabdho ilaahay baan ku dhaariyay iska dhaafa maxay haydaan sawirada aad ragga u diraysaan yaa sawirada aad ragga u diraysaan iska dhaafa gabadh baa igu tiri walaal qisa ay ugu dhacday in qisadaasaan rabaa inaan ku dhibo nasiib daraan ilaa markiisa qisooyinka ma ah alashan way fiicantahay in qisooyinka laga sheekeeyo laakiin inta yaraan wax karanaya wax duubaya mooyaan wallahi markaas ordaya mooyaan inta kale waqtigu way iska kooban yahay marka gabadhaas waxay ka sheekeynaysaa alashan in ay waliba shukaansan jireen oo sawiro u dirtay oo maxay haydaan sawiro qalqaldan inta isla galgaleen aw markii dambe leeyahay waxaad rabtaba ii sameeynin maxay haydaan waxa soo dhigaya social media wax meel la isku hanjabo noqday marka waxaan leeyahay hablaha Soomaaliyeed biliis raggu ma wada caafimaad qabaan gabdhuhuna ma wada caafimaad qabaan alashan ragga kaliya eed la saar ragguna ma wada xuna gabdhuhuna ma wada xuma laakiin hadda waxaad moodaa labadaba inay xumaantu badanayso marka walaalahay waxaan leeyahay biliis ka daysta sawirada qaaqaawan ragga u diraysaan ay sawir kastaba waad arkaysaan gabadh uu qabay oo awlaad u dhashay oo xaaskiisii ahayd oo shariik xayaatigiisii ahayd ayuu fiidiyay intuu ka duubo social media soo dhigay adoonku qabin maxaad isku malaynaysaa walaalay macaanay habar yarey hooyoy wiiliga gabadhan leeyahay ilaahay xiftiyo waan damqanaa wallahi wiilkaygana inaa dhibaato lagu sameeyo ma ogoli gabadhaydana inaa dhibaato lagu sameeyo ma ogoli taas way waan dareemayaa ta kale oo nigu xigtana waxay tahay gabdho khaasatan waxaan la hadlayaa gabdhaha TikTok markasta waan ku celinayaa dhaweydna waan ka hadlay wallahi hadana waan ku celinayaa sababtan ugu celinaya waxay tahay markaad isruuxaysid inanay naaskaaga iyo banaankaaga aad alashan kubkaaga banaanka soo dhigaysid bariyaa ku guursanaya hadda ka horna fiidyo kale ka hadla u maleena YouTube ku sii jiray yaa ku guursanayo yaa wax kugu falaayo ada isqiimo riday sharaftaada iyo qiimahaaga quruxdaada Saudigan soo bandhigay ilaahay ku yiri quruxdaada guriga kula joog yaa quruxdaada guriga ku qarso lagu dhaxay Saudigan banaanka u soo dhigay de waraabayaashii cadowga cid kastiba halkaas kaaga istiimayso yaa marka waxa weeyaan gabdho waalid baa idin dhalay hooyaa idin dhashay hooyaanahay hooyo kastana waa ila mid hal habeen ilmahaagu markuu yara aad xanuunsatay oo la soo jeeday bal ka waran yaa abaalkaaga gudi karin iska dhaaf wax kale hal habeen ka siixan waa ilmo ama caloosha laga qabtay meel laga qabtay oo qaaqdahay adoo waalidkaaga abaalkiisa aan gudi kareynin ilaahay jirkiisa ka soo jeexadana dad calool xumo kale iyo indho xumo kale iyo talow xaaladdu maxay noqonad ugu sii dartid ka waran cadaab aakhire mid adduunyada soo shaqaysanaysid haddana jirkan quruxda badan ee ruuxaysid ee banaanka soo dhigaysid cawrad baa tahay miyaad ka cabsanaynin ilaahay ku siiyay inuu kaala noqdo kansarkaaga rido ama ay lagu kaagoodo accident gashamay gacan kaagoodo ma indhuhu ka dhacaan meeshan aad soo bandhigaysid isleedahay halkan aad ugu qurux badan tahay banaanka dhig inay mucjiso kaaga dhacdo miyaad ka baqaynin
yaa talabaadee kale maalinta ay tii rabbi kuu imaato yaa maxaa kaa horeeya qabriga maxaa kaaga horeeya ma isweydiisay su'aalaha kaaga horeeyay maxay yihiin maxaa isku ruuxayaad dhahaysaa ilaahay jawaabtaad u haysaa maxay tahay subxaana wa tacaala marka gabadha waxaan leeyahay biliis ka waan tooba xumaanta yaa ka waan tooba xumaanta aaminku wuu yaraaday in aad calaashaan cid kasta wanaagiina iyo farxadiina aad la sheer garaysaan oo familkiina ka baxsan ma aha yaa iyo quruxdiina marka waxaan leeyahay qiimo isku yeela ilaahay qiimiyo sharaf buu ku siiyay gabadh Soomaaliyeed buu ka dhigay diin buu ku siiyay alxamdulillah binimcati islaam rabbi ku shukr quruxdu ku siiyay farxadda aad haysato iyo kibirka aad ku ruuxayso inaan yaro Soomaalida kula midoon haysan baa jirto oo hooyadeedii aabaheed baad rabaan qarax ku dhinteen haday rabto curyaana oo jifta oo cagala oo dhulka taala kuwa ku taamila qaado waxaad isla ruuxaysaa caafimaadkaad haysato dadan haysanaa jiro farxadaad haysato dadan haysanaa jiro wadnahaad ku boodboodaysa qaar uu ka maqan yahay jiro yaa oo caag ugu shaqeynayaba marka gabadho ilaahay ka cabsada iyo wiilalbo wiilashina sidoo kale imisaad wiil walaalkaayo saaxiibkaayo oo qaraxyadii wadankeena rafaadka ka dhacay ku beelay xididkiisa taranka ama se ku beelay lugihiisa ama se ku beelay adu lixaadkiisa meel oo fadhiyay imisaad garanaysa kula mid isku daahaydan ama aad mal dugsi wada bilowdeen quraan ama aad iskuul wada isku galaas ahaydeen marka rabbi subhanahu wa ta'ala hal dib hal loogu laabto ilaahay qafoor raxiimka la isku xiro xumaantana aan iskaga hadhno insha Allah ilaahay idamkiisa talabaada kale wiilasha waxaan leeyahay horta kuwa wadankii jooga oo waxaan arkayay hooyo Soomaaliyeed oo xaamilo ah 8 bilood ah oo 4 nin oo dareeska dawladda ku labisan ay faraxumeeyeen subhanallah kaana ina adduunka naakale xataa ka waayeen oo ninkeedii soo hor jooga lagu hor farxumaynayo dadkaas ma waxaan dhihi karnaa waa dad fayo waa mayana marka aan leeyahay dadku ma wada fayooba wallahi waa sidaas sababtoo nin ilaahay abuurtay oo damir siiyay hooyo 8 bilood uura leh oo nin sawjkeedii hor jooga indha xumo ka weyn ma damirkiisu ma sii sababtoo hooyo dhashay sababtoo gabadh baa la dhabatay sababtoo mustaqbal buu leeyahay sugaya marka dadka ragga qaar mustaqbalkiiba way ilaaweenbo iimaankii bay ka kaceen subhanallah mustaqbal ma leh diin ma xasuusna iimaan baan ku jirin waa faaruq kaaga darantay waxa lagu soo labisanay waxa lagu leeyahay mar walba xerada barkacayaasha waxa ka dhacay rag dareeska dawladda ku labisan raggan dareeska dawladda ku labisan dawladdu wax kama qabata miya ilaa dawladda ka tirsan oo shaqaaleysiiso dareeska dawladda oo xidhay wax kama qabata miya subhanallah wallahi ilaahay xaq umada ha tuso marka waxaan dhahayaa inamada dhalinyartaan habar yarow hooyow walaalkayga yarow ama ilaa kama iga weyno ama iga yarow ama aan ku dhali karaa ma aan ku dhalin mid intaas rabto intaas un baad ku leeyahay waxaan igula talinayaa hooyaa ku dhashay gabadh Soomaaliyeed bad guursanaysaa ilmahaaga hooyo u noqonayso inan baa kula dhalatay isqanjeeri korkaaga ma u qoori lahayd walaasha xumaan ma u qoori lahayd hooyada xumaan ma jeceshahay gabadh la soo faraxumeeyo rag soo faraxumeeyeen ama seba suuqa ku soo jiri jirtay oo publiga ku soo jiri jirtay inay mustaqbal ku noqoto moogash waa maya ta kula dhalatay ma rabtaan inay noqoto waa maya marka taad dhashay ma rabtaa waa maya marka xumaan aan naftaada u quudaynin ha u quudin inaan walaashaayo xataa ha ahaato gabadh cadaan iska jir waxaad ogaataa hal far markaad saarto gabadh ajaanib ah ka ah aad farta aad saartay inay walaashaada kula dhalatay ka go'antay iyadoo la saarayo haddii aad far gabadh saarto taa waa kula dhalatay la saaray hadhihi sidee walaashay far loo saaray sababta adaa u horseeda adiga u keenay adaa fidneeyay gurigiin adaa fidneeyay walaasha yaa marka saxaabta qaaliga wallahi intaas kulli maskaxayda ku jirtay maanta rabay inaan la qaybsado waana wax mar walba maskaxayda wallahi ku jiraan dhahayo adduunkan talow masana ku sii soconaya isoo ka sii reynay ka soo reyn doona faaxishadan iyo rafaadkan iyo hoogan ma sidan ku sii soconaya mise subhana ilaahay farash buu noo bixinayo sidan waa la dhaami doona ilaahay idamkiis waxaan ka rajaynaynaa
inaan dhaano sidan oo ilaahay subxaana watacaala farash inuu soo bixiyo masuwooyinka adduunyada iyo kuwa aakhirada intooda muuqatay intooda qarsooma naga xijaabo dalkeeniina ilaahay nabad nooga dhigo yaa duruuf kasta oo ku jirnana kuwa isjecel oo gacmaha isqabsada Allah naga dhigo marka walaalahay magaaladaydii baa xaaga ka soo muuqanaysa fiidiyaha uu badanaya intaan aan ku soo gabagabeynaya naagtan waxa la dhahaa dheerada duurka awal samarkii bay duuli jirtay hadda barafkii bay ku darsatay yaa xaajiya daldalantay yaa la dhahaa